maalgashiga macdantu wuxuu mudan yahay dhiirigelin waa murta ay ku saabsan tahay faaladeena warku waana qalinkii Xuseen Aadan Yuusuf Xuseen Kurdi macdantu waxa ay ka mid tahay kheyraadka ugu muhiimsan ee dhulka ku jira taasoo jiritaankeeda aanay aadamuhu wax luga ku lahayn waxaana la ogaaday in macdantu tahay shaygu ugu horeeyay ee aadamuhu maalgeliyay oo uu samaystay iyadoo muhiimad weyn u lahayd taariikhda isbedelaysana bini aadamku waxa uu mar walba waday isticmaalka macdanta oo maalinba taxigta noqonaysay mid ka faa'iido badan sidii hore ilaa aynu ka soo gaarnay halka aynu maanta ka joogno isticmaalkeeda tusaale ahaan waxa la ogyahay in macdanta birtu ay tahay lafdhabarta cududa military iyo dhismaha dawladnimada iyo dhaqaalaha ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxa uu birtan kaga waramay kitaabkiisa kariimka isagoona sheegay inuu soo dejiyay bir ay xoog iyo faa'iido ugu jirto dadka dalkeena Soomaaliland waxa maalinba taxigta soo kordhaysa sida ay dadweynuhu u danaynayaan ka faa'iideysiga macdanta ku duugan dhulka hoostiisa iyadoona maalgashi badan lagu sameeyay sanadihii ugu dambeeyay oo ay muwaadiniin badan u soo jeesteen ka faa'iideysiga macdanta taas oo guul laga gaarana ahmiyad ballaaran ay u leedahay kobaca dhaqaalaheena iyo horumarka nolosheena shalay sabtidii madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxa uu magaalada Boorama ku kormeeray warshad qaabilsan baadhista iyo kala saarista macdanta taas oo cadeynaysa macdan waliba nooc ay tahay iyadoo haddaba ay dadka qaarkii hore u gacan galiyeen macdanta dalka ayaa haddana hirgelinta warshadan iyo waxa ay dhiirigelin u tahay dad badan oo isku dayay inay ka faa'iideystaan kheyraadka macdanta ee dhulkeena ceegaaga waana tallaabo ku dayasho mudan oo ay qaadeen maalgashadayaasha maxalliga ah ee warshadaha sameeyay muwaadinka Soomaaliland waa inuu ogaado ahmiyadda ay u leedahay macdantu iyo inay qaybaheedu yihiin waxyaabaha ugu horeeya ee aan looga maarmi karin dhismaha warshadaha iyo wax soo saarkoodaba iyadoona tiknoolajiyada caalamiga ah ee lahaanshaheeda lagu kala dheereeyay ay lafdhabarteedu ka samaysan tahay noocyo kamid ah macdanta dhammaanba waxyaabaha inagu qaaliga ah waxa laga sameeyay macdanta sida qalabka tiknoolajiyada telefishinada talaagadaha kombiyuutarada iyo telefoonada gacanta qaybaha gaadiidka tareenada gawaarida xamuulka kuwa yaryar iyo raaxada basaska maraakiibta iyo diyaaradaha iyo sidoo kale daawooyinka iyo cuntooyinka qaarkood ayaa ka samaysan macdanaha haddaba muwaadin haddii ay macdantu tahay shay ilaa heerka muhiim inoo ah waxa lama huraan ah inaynu awoodda saarno ka faa'iideysigeeda inagoo u marayna wadada saxda intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Xuseen Aadan Yuusuf Xuseen Kurdi waxaana idila socodsiinaya anigu Ashaab Cabdi Goole